بسم الله إلهي سبحانه وتعالى مركب ورم هذا سكله شركة شرايدة عن شعلها يعني قرابة قبطه وحو سابسية هي صدح عرمان مراس وسابسية وحو سابسية من الحسبية ده من قبيلة ده من الدولة ده هذا مارتي تشرتها هذا إنك حكم كهالشيء توحن كهلا يا حسبية ده مركب وراء نول بحسبي بيو كتشري أو حسبي وطني بيدا كتشري مد كلمية كتشري مد أعد بيو كتشري حسبي ده لو كتشرينا حسب كستابا قبيل كستاوي تاجري أعد واحد تاجري سي قبيل البيو كتشري كلمية قبيل البيو كتشري وطني قبيل البيو كتشري حسبي دي إلا هذا حسبي دي مقاعد وحبارسي ما اسمه بدلني doorashooyinka dambana haddii ilaahay dee u idmona way kaga qayb galayaan anagu waxaan ka mid ahaa anagu waxaan ka mid ahaa xisbiga wadani ilaa abtinoona xisbiga wadani baan dee ku jiray waxa weeyaan aan ku jiray ee dee waxna waan marna deegan helan dooninay laakiin waana laga helay haddiina laga helay dee waan maartay waan u hambaliyana qofka naga helay annaguna haddaanu heli lahayn dee wuu noo hambaliyan lahaa xisbiga kulmiye xisbigii hore dee dawladdii hore badda kulmiye ahayd madaxweynihii hore iminka hadda joogay aan dee weli maartay jagadan kursiga qabsan 7 sanadood buu haysto kayga yari wuu ku 40 baxay 7 sanadood lacagtii maanta aan hawshii wuu ku 40 baxayba laakiin 7 sanadood haystay dee waxay ahayd reer baaska jeegan ahaan bay dee u socotay waanagu 7 sanadood ka qatanay إمك حسب جانم كهدنا كل مية لما كيم كهدنا مرات هرينا سي لاش اللي جدنا عم تبي هو يعني قبيلات أكو هلا أكو سو هلا لكن وليد ده كرسي إمك كفر السنة يا وحو أرن دانا يا وحو مارتي كترن دانا الله أعلم ما جرنا وحو ما نشاء الله يوصيه هرك تيارا كو قدنا تندمين يعني لقو قدم أيام لين هاي وحن كلا عن كهذا نحو يعني mar haddaad imika uu muusabixi madaxweyne noqdo hadda qabtay wuxuu baahan yahay maxaanusan u baahnayn imika waxaa jirtaa dhowaan guddi hore u jirtay oo loola jeeday guddida qarxaajis waxbay ka mid ahayd beelahan somaliland ayay ka mid ahayd qabyaaladna iyadu ugumay horeen oo dee guddi qarxaajisaan qabyaaladahaan ugumay horeen waxaa jirtay qaar kale kuba horeeyo oo iyagana dee magacyadii caddeeyey oo iyagana anaguna waxaan nahay guddida reer hebel iyo guddida reer hebel waxaa intii siiraaya joogay badnayd guddiyo fara badan oo iyaguna qabaa'il fara badan soo baxay xisbiyadana waxay la kowsadeen qabaa'ilka faraha badan ee markaa dee soo kacayay ayuunbay xisbiyaduna la muquuteen dabeetana weli jeegaantii inkastay dee markaa is jirtay oon dee jeegaan aynay ka maqnayn haddana waxaa jirta in maaragtay dee qabiilkii bartii uu joogo oo dee lagu farabadan yahay waxaa kaloo jirta imika waxaa lagu dhawaaqay shir jaraa'id baa lagu dhawaaqay oo ay ku dhawaaqeen qolada qarxaajis marka magaca imika inaan ku dhawaaqo inaa qolada qarxaajis iyo qolada hebel iyo reerka ma jecli waxaan doonayaa mar haddii imika aan gallay weji cusub oo ah camti dawlad cusub oo magaranaysa ayay dee bedeshatii hore wax kastaa lagu soo doorto laakiin imika dawlad cusub in dawladdan cusub haddana lagu bilaabo maaragtay anagoo reer hebel ayaa haddana shir qabsanayna hadda dawladdii may fadhiisan anagoo hadda reer hebela shir qabsanayna taasi waxay baabiinaysaa haddana jiilalkii yaraa ee soo kacayay ayay haddana baabiinaysaa ee mustaqbalka sugayay ee shaqo tegayay in haddana jiilkii la yidhahdo waxaa tihi reer hebel baa tihin oo shir baan qabsanay nacamti waxa weeyaan adigii haddii aad wixii aad doonaysay aad ka weydo kan imika yare ee imika jaamacadda ka baxay ha ku xidhin inuu reerkii la shira haddana mar labaad haddana reerkii aad ku soo xidhiso waxaan jeclahay anugu dawladdu way dhalatay si kastaa ku dhalatee waan ku hambalyanaynaa waan laga dambeynaya de waa madaxweynihii dalka ayuu noqday waxa weeyaan madaxweynuhuna waxaanu jeclahay inuu qabyaalo dadka shiraya ee shirka ku dhawaaqaya beelaha mar hadduu dee xukunkii qabsaday dee inuu asna uu taa go-aan ka soo saara adag inaan shir dambe oo beeleed la qabsan karin hadduu shiraha beelaha hadduu shirarkooda u fasaxo waxay imanaysaa in xitaa beelaha laga tegi doono oo
nacamti loo shiri doono xaafad iyo degmo iyo siaqaar la noqon doono. marka in shir kasta oo lagu dhawaaqo qofka shirka ku dhawaaqay waa ujeedo kale uu doonaya. hadduu shirkiisa doonayo inuu qabsado waa inuu markii xukunkii lagu wareejiyo inuu kadib ka hadlo oo nacamti administrationkii iyo dee habkii protocolkii uu maro. laakiin ka hordhacin iyo waxaan imanaya qaar kalena way iman doonaan. marka anigu waxaan taa madaxweynaha cusub uga digaya inaan hawlaha noocan oo kale ah inaan total seedba loo qaban. wixii ka dhacaya ka dhaca in la joojiyo shir beeleed oo dhan oo aad ku soo hagto nidaamkan dee lagu doortay iyo sidii ay dadku isugu mid u wadaan lahaayeen nin walba shaqo uga heli lahaa meesha oo nina uga marnaadeen oo si tii hore shaqo looga waayay tanna aan looga waayin. laakiin haddii anagu aan is urursano nahno aniga xasan haan gaar ahaan haddaan nahdo tii hore 7 sanood baad ka weyday tanna 7 sanood uu qaban doono iska heli maysid. dee taasina nacamti waxa weeyaan waxa weeyaan wax xagga qofka bini'aadamka waa inuu yaqiinta qofku qalbigiisa ku ridaa geeri baad imanaysa ilaahay wax kale oo ku siin karaa وأسبوع زبل بدل كرا وحياة ما إمن كرا مركانو طلعان ما حكم بيننا مدحوينها له شيء يعني شر لقيلين شر بلاد يعني السومالي لا لقيلين قف قبيل كاستهم نقده إنه هذا الشر بلاد بنقصنا يعني إن لو جسر ردو وضنا الصحراء لقول ردو الله إيجو إنما generation كأسلوب أسواق عيا متعلمين ترى إيشوجا يعني قلبي جود اللي يقول ردين سو هادو مركي waxaas uga baabaan xisbi kasta oo noqdo ku doortaabo kiisi oo noqdo oo la walaala yeesho. laakiin hadda la xisbiga hadoon waa xisbiga reer hebel kaan hadoon waa kii reer hebel kana hadoon reer hebel muxuu markaa faa'iidada oo macna ka dhalan kartaa maxay noqon kartaa. marka anigu hadda waxaan ku soo gabageynayaa anoo caaqil xasana madaxweyne hawshii lagu doortay waan ku ogeyn laakiin imika mar hadda kursigii aad ku fadhiisatay waan kugu hambalyeynaa. waxaan kaaga digaynaa qorshayaasha qabiil ee dib ka dhalan doona ee ayatiinka ciribta qofka bini'aadamka hadda dib u ka noqonaya ee baabiinaya ummadda Soomaaliland qabiil u tirtiraya inaad wax ka qabato oo xidho shir beeleed kastaba wax kasta ka dhaca. waayo ninna mandate uma haysto shir beeleed nin mandate u haystaa ma jirto nin walba reerku ka tirsay kii kala ka tirsan. marka mandate uma haystaa nin mandate u haystaa ma jirto nin mustanbeedina ma jirto mandate u haystaa nin gudoomiyaha oo mandate u haystaana ma jirto. laakiin xisbiyadii mucaaradka sideedii u jiraan xisbiyadii mucaaradku sideedii u jiraan xisbi xaafidkuna sideedii u jiraan waanu helay waan ugu hambalyeynaa. intaas aan ku soo gabagabeynayaa shirkeyga jiraad. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.